Maxaa sababa burburka ku yimaada xiriirada jacaylka? Mawduucan ku saabsan burburka ku yimaada xiriirada jacaylka waa mawduuc aad ugu muhiim ah guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada. Wuxuuna kuu iftiimin doonaa arrimo badan oo ay dhici karto in aad ku wareertay inaad u hesho jawaab macquul ah oo ay maskaxdu qaadan karto. Mawduucan waxaa soo diyaariyey idiinna soo jeedinaya anigoo ah Al-Ustaad Axmed Diiri Afrax. Ka bogasho wacan. Inta badan dhalinyarada, hablo iyo wiilalba, marka ay soo hana qaadaan waxay aad ugu mashquulaan arrimo haasawaha iyo xiriirada jacaylka ah, taasoo laga yaabo in qaarkood ay ku waxbarasho seegaanba. Marka aad si qoto dheer uga kuurgasho xiriirada jacaylka ee dhex mara dhalinyarada, hablo iyo wiilalba, waxaad ogaanaysaa in boqolkiiba 80 ay ku dhammaadaan fashil iyo burbur. Haddaba su'aasha qof waliba qalbigiisa ku soo dhacaysa ayaa ah, maxaa sababa burburka ku yimaada xiriirada jacaylka ee dhex mara dhalinyarada? Haddii aan isku dayo inaan farta ku fiiqo ama aan yara bidhaamiyo halka ay sartu ka qurunsan tahay, waxay tahay in marka horeba waxa aynu inta badan u naqaano xiriir jacayl uusanba ahaynba sida loo dhigayo. Maxaa yeelay haddii uu ahaan lahaa xiriir jacayl oo dhab ah, sahal kuma uusan burburi lahayn. Haddii aan arrintaasi sii sababeeyo, sida badan aad bay u yar tahay in haddii ay gabadhu jacayl u qaaddo wiil, in ay si fudud ku soo gudbin karto dareenkeeda amaba ku soo bandhigan karto jacaylkeeda. Waxaa inta badan ka hor istaaga dabeecadda dumar ahaan iyo xishood, iyo iyadoo weliba ka baqaysa arrimo kale. Sida caadiga ah, wiilasha ayaa u badan soo bandhigashada waxa aynu u naqaano xiriirada jacaylka, balse magac uun ka ah xiriir jacayl oo ay ku hoos qarsoon tahay ujeeddooyin la xiriira damac kale. Wiilka waxa uu ugu horraynba indhaha ku dhufanayaa gabar shidan jir ahaan iyo qurux ahaanba, taasoo ay ka saacidayso hablihii oo inta badan soo xirta labis muujinaya jirkooda. Wiilkii waxaa durbaba galaya damac aan lagu sheegi karin jacayl, balse ay hogaaminayaan dareen iyo rabitaan jireed oo keliya. Sidaasi daraaddeed, durbaba wuxuu dadaal xooggan u galayaa sidii uu ku soo xirigelin lahaa gabadhaasi, isagoo u sheegaya inuu aad uga helay una jecel yahay. Muddo ayuu u adeegsanayaa hadallo dabacsan oo qalbiga gabadha si fudud ku soo jiidan kara, jacaylna ku abuuri kara, taasoo sababta in kama dambayn gabadhii uu qalbigeedu jilco, jacaylna ku abuurmo. Kadibna ku kalsoonaanta iyo kulamo dhex mara wiilka damaca jireed lahaa iyo gabadhii daacadda ahayd ayaa waxay ka dhasha natiijooyin aan la mahadinin. Ileen wuxuba ma ahayn xiriir jacayle. Durbaba gabadhii waxaa ku dhacaya niyad-jab aad u xooggan markii ay aragto wiilkii oo ka sii xiisa dhacaya, oo xataa laga yaabo in wicitaankaba uu ku dhageysanayo, taasoo kama dambayn sababta in gabadhu xilli weliba halqabsi ka dhigato oraahda ah jacayl wax la dhaho maba jiraanba. Inta badan xiriirka jacayl ee dhabta ahi si sahal ay kuma burburo ilaa duruufaha qaarkood mooye. Ha moodin kolka aan sidaa leeyahay in mar weliba ay wiilashu qaladka leeyihiin, oo waxaa jira wiilal aad u tiro badan oo wanaagsan oo iyaga qudhoodu lagu khiyaanay jacayl dhalanteed ah oo ay ka dambayso sababo dhaqaale oo qura. Mawduucaas oo faahfaahsan waxaan idinku soo gudbin doonaa isla YouTube channelkan, insha Allah, si aad ula socoto qisooyin jacayl oo taxane ah, sida qisada haatan inoo socota ee fooridii jacaylka ama jacaylkii foorida, arrimaha dhalinyarada, xigmado, madadaalo iyo ilo qosol. Intaba kala soco YouTube channelkan. Waad ku mahadsan tahay haddii aad ka mid tahay macaamiisha ku xiran ama rukunta YouTube-kan. Waa Axmed Diiri Afrax oo idin rajaynaya nolol farxad leh meel weliba oo aad ka joogtaan.